السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan doonayaa saakin aan kula wadaago shan shay. Shayga koobaad wuxuu yahay ka soconow dadka intooda badan. Sidooda guud, waqtiga ay kacaanba adigu waxaad ka horkacdaa 2 saac. Waxaan kuu hubaa inaad noqonaysid qof wax dheer oo tallaabooyin iga ka horeeya. Waxaad ogaataa ninka madaxda ahi shaqaalaha sidii u shaqo gali lahaayeen wuu yaqaanaa, waana sababta loogu dhiibay xilka. waxaad isku daydaa inaad noqotid qof fakarkiisa shaqo geliya. waxaad noqotaa qof noloshiisa wax ka baranaya. mar walba waxaad naftaada ogaataa markaad riyo weyn leedahay, shaqada ay kaaga baahan tahay ayaa mar walba ka weyn. su'aashiisa waxay tahay, diyaar ma u tahay? qodobkayga labaad wuxuu yahay subaxii markaad kacdid maalintaada hano oo gacanta ku dhig intaysan iyadu gacanta adiga kugu dhigin, oo aysan markaa kuu jiidin meel kasta oo natiijo aan lagu farxinin noloshaada hadhow ay ka soo baxdo. waxaad noqotaa qof qorshaysan. waxaad noqotaa qof naftiisu aysan hagaynin oo u talinayn maanta dhan, laakiin gacanta ku haya oo wax kasta oo danteedu ay ku jirto marsiinaya, ku dirqinaya oo ku khasbaya. waxaad noqotaa qof dulqaad leh. haddaadan dulqaad lahayn, noloshan wax fara badan oo ka mida ma gaari karaysid. qodobkayga saddexaad wuxuu yahay saaka waxaad haysataa fursad kale. xusuuso inaad ka fiican tahay dad badan oon haysan fursaddan cadceedda quruxda badani u soo baxday. waxaad noqotaa qof ku faraxsan nolosha inta uu haysto. qodobkayga afaraad kaa uga gudbayana wuxuu xiriir la leeyahay qaybta ugu dambaysa oo ah farxadda. waxaad ogaataa xoolaha adduunyadu farxad ma keenaan. qofku darajo kasta oo uu nolosha ka joogaba farxaddu waa shay uu abuuran karo. adoo aan waxba haysan oo faqiir ah oo cariish deggan baa waxaa dhici karta inaad ka farxad badan tahay nin diyaarado isagu uu leeyahay ku duulaya, guryo waaweyn oo qurux badan oo dhalooyin iyo dhagxan qaaliya ka samaysan mid deggan baa laga yaabaa inaad ka farxad badan tahay. farxaddu waa shay qofku uu dooran karo. in badanoo dadka ka mid yihiin murugada iyagaa doorta. waxaad arkaysaa qof baadiye jooga oo duruuf fara badani ay soona martay kuna jira, haddana saas way tahay ka farxad badan midka magaalada deggan oo gaadiidka wata oo xoolaha fara badani soo gelayaan oo guriga quruxda badan deggan. waxaad ogaataa farxaddu marka waa shay adigood xor u tahay. markaad rabtidna waad damin kartaa, markaad rabtidna waad shidan kartaa. waa shay adigu ay doorashadeedu kuu taalo. haddaad door bidid inaad murugaysnaatid, waad murugaysnaanaysaa. haddii aad door bidid inaad ka baxdid ood ku faraxsanaatid waxa aad haysatid, ood ku qanacsanaatid qadarka iyo qismiga ilaahay adduunkan uu kaa siiyeyna, shaki male waxaad ku noolanaysaa farxad. inta xanaaqsan oo murugaysan oo caajiska iyo dibudhigga fulinta waxay naftooda ku horumarin lahaayeen ay la cuslaatay, eed moodaysid inay nolosha dayn ku leeyihiin ha ka mid noqon. qodobkayga shanaad ku gabagabaynaya taa uga gudbayaana wuxuu yahay qof kastood jeclaan lahayd maanta darajada nolosha uu ka joogo inaad adiguna ka gaartid ood sidiisoo kale noqotid. hadday noqoto xagga maalka, hadday noqoto xagga cilmiga, hadday noqoto guurka iyo barwaaqada uu ku dhex jiro, waxaan kuugu bishaaraynayaa oo kuu sheegayaa wuxuu isagu intaa ku gaaray adba waad haysataa. haddaba cimrigaaga ka faa'iidayso. intii aad kurbo iyo walwal iyo calaacal wakhtigaaga ku lumin lahayd, waxaad ku dadaashaa oo weliba iyadoo farxadi kuu dheer tahay si firfircoonna aad u guda gashaa riyo kasta oo aad leedahay sidaad u rumayn lahayd. cimriga aad haysatidna waxaad ogaataa inuu kooban yahay. allah waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu adduunyadan iyo aakhiraba uu ina ka yeelo kuwa raaxa.